سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay ee naxariista guud iyo midda gaar ahaaneed ba naxariista. والسماء والطارق. Allah wuxuu ku dhaartay samada iyo xidiga guura. وما أدراك ما الطارق. متقانا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حدق قورة النجم الثاقب. وحدق افتينكي سدريهي إن كل نفس لما عليها حافظ. نفول بوحى دشيدا هذا مدي لالينيا. فلينظر الإنسان مما خلق. dadku ha fiiriyo waxa laga abuuray. خلق من ماء دافق. waxa laga abuuray biyo booda. يخرج من بين الصلب والترائب. biyahaasoo ka soo bixi dhabarka iyo kalxamaha dhexdooda. إنه على رجعه لقادر. الله هو awoodaa soo celinta dadka qiyaamada. يوم تبلى السرائر. maalinta la imtixaani waxa laabta ku qarsoon. فما له من قوة ولا ناصر. إنسانك وما سقنان maalintaas wax awood ah iyo wax u gargaara midna. والسماء ذات الرجع. الله wuxuu ku dhaartay cirka leh roob soo noqnoqonaya. والأرض ذات الصدع. iyo dhulka dildilaaca markuu roobku ku da'o. إنه لقول فصل. quraanku waa hadal cad oo kala saaraya xaqa iyo baatilka. وما هو بالهزل. quraanku ma aha ciyaar iyo baatil ee waa xaq. إنهم يكيدون كيدا. gaaladu waxbay dhakri. وأكيد كيدا. annaguna waan ka abaalmarinaynaa dhagartooda. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. النبي صلى الله عليه وسلم كرؤوا سقالة وحير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سورة الطارق ومكية تضبية تبن آيات ضيين ككوبنتها وانا سورة اللحية سيديتنا ترتيب القرآن الكريم سورة الطارق وحي عدين ساود إلهي سبحانه وتعالى إيا إن إنسانكو يهي مسكين لقى أبو ريبيبو دمندا إنسانكو مركو ديدو أمرك إلهي سبحانه وتعالى إيا إن لصوب حندونو إيا إن لابها وحي كجر لصوب نقي دونو أو لامتحان دونو إنسانكو وحوب اللابها حمان إيا لقر إيا خيانو hase yeeshee Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa ka abaalmarin cid kastoo isku dayda inay Allah azza wa jalla iyo diintiisa dhagarto. qur'aanka kariimka waa hadalkii Allah subxaanahu wa ta'ala ee kala bixiya xaqa iyo baatilka. kuwa sabeeniya Allah subxaanahu wa ta'ala iyo aayaadkiisa Allah ayaa ka abaalmarin doona maalin aysan istifaaci karin cid kaalmaynaysana jirin. maalin aysan istifaaci karin cid kaalmaynaysana aysan jirin. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.